waxaa maanta magaalada Arabsiya lagu qabtay xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinay ardayda dhamaysatay sanad dugsiyeedka waxbarasho. Xafladaasi waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabley Cabdisamed Sheekh Umar Qaabil, barsaabka gobolka Gabley Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha degmada Arabsiya Cabdilaahi Faarax, agaasimaha diinta iyo awqaafta degmada Arabsiya Maxamed Xasan Liibaan. Waxaa kaloo ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan, waalidiin iyo arday tiro badan, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa seetan. cilmiga yaraanta lagu dhigtaa wuxuu la mid yahay dhagax lagu qoray naqshad lagu qoray. dhagax haddii wax lagu qoro dee ma baabaayo. cilmiga marka yaraanta lagu bilaabana wuxuu la mid yahay dhagaxa wax naqshada lagu qoray, siduna u baabaayo ilaa weligiisaas uu ahaanayo ayuu ilmaha yar ugu sawirmaya. marka weligii kama masaxmayo. marka waxaan ardayda yaryar waxay la mid yihiin cilmiga saasoo kale la mid yihiin. العلم علمان، علم والله علم الفقه وعلم علم الفقه للأديان وعلم الطب. علم اللباس مو قيسنا، علم الشريعة هي علم فقه. وحنا كسلام يا مسؤولين تا هير قبل يا هير دمبة دمانتون يا والدين تشرفت لي ما أنت هالكن سكوي يمد يا أرضي هالكن ما أنت يا ناس سكوي تمد دمانتون أنت جالس تلصيني أنت كذا دمانتين يا مرت شرفت دمانتين يا مش سكوي تمد دمانتين. وحنا السلام يا سلام الإسلام كا وحني يرك ثابن دونا أساس كسكول كان برمير العلفان. وحنا كثابن دونا وحيد مركز صوت الله أساسا وحيد مركز نوارجني magaaladu inayna baahi u qabto markaasi waxbarashadii maadaama magaaladeen aad u ballaaratay sababta waxay noqotay in ogaano markaasi iyana inay u baahan tahay magaaladii iskuul kale iyana marka waxaan u aasnay markaasi soo ardaydaas u heli lahayd iyana waxbarasho tayo leh markaasi maxay dugsiga Alcafaan Primary School hadaba waxay adeegsanayaan markaasi sidoo magaalada ugu soo saari lahaa arday tayo leh oo waxbarashadoodu heer sare tahay oo meel kasta ay ka muuqato sababtu ardaydaas u dhisi lahaa dhamaanteed busna markaasi iskuulkaas iyana aynu furnay markaasi. Alhamdulillah sallallahu salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du waxa farxad weyn oo ah martida sharafta leh noocyada kala duwan ee faraha badan leh noo martida waa waalidiinta ardayda Alcafaan. اللهم صل على المامولك سرع قبل كمجالدا قدوميه قبل كوكا يهي إلهي الواسع مامولك الدجمدا قدوميه دجمد شوقة عبد فرح لما تود وحن لنا هاي كعمة فرق سود وهذا أنت همر كان كبدو أن كل مدارس العرفان أن مجالدا عربية تعيد كل سبوع يعني waynu wada ognahay aadna waynu uga warhaynaa waxay tahay waxay ka shaqeeyaanna waa la ogyahay marka aan leenahay aan garanaysay dee tayo wanaagsan bay ardaydani leedahay Alcafaan asalkooguna wuxuu ku yahay waan wada naqaanaa in badan oo halkan fadhida oo rag iyo dumarba leh waxa aan ku soo baranay madrasada Alcafaan bilowgii intaan anagu ogeynay laga bilaabay waxaan ku dhiganay bilaash bilaa lacag baan ku dhiganay intaas sanadood ee aan joognayba ilaa maantana dee kutubtii waan loo akhriyay casharkii wala noo wada koob shaahana lagama qaado. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilaahay baa mahad leh isugu keenay xalfadan qiimaha iyo qaayaha leh ee ay ka soo qayb galeen dadka sharafta leh waalidiinta iyo ardaydaba ay ka soo qayb galeen ugu faraxsanahay. مدرستنا هو مدرسة غالية ومدرستنا إمك أنت اللي نقولش كذي أنت الكور هينبا مدرستها هو الرئيسة ومدرستنا هو برتاد دينيك يعلم جماعة جوا يكسر كردية لا بدبا هذا بقى توين اللي كفاية يسنو أنا وحنوص واقعي إن نودع همبلي ما له كيرنا dadka horena uu anfacay midhadhana uu noqday insha Allah inta ka sii balaadan leh waxa la Alcafaan waa xulurta waxbarashada waxa weey waa nimcay Ilaahay siiyay meel fog looma marayo bas looma raacayo magaaladeena dhexdeeda inuu ka helay macallimiinteeni
وقف والبحث الله حلينا سكوري وقالناس ku hadlaya ururka naafic afhayeenkiisii bacdayntaasi waxaan salaami doonaa waalidka aadka u quruxda badan leh ee na soo ajiibay dalabkeegii aba xafladda inay nala qaybsadaan aad ayaan u salaamayaa mid kale ayaan oran lahaa macallimiinta intaasoo ardaya ee intaasoo waalid awlaadoodii haya iyaga laftigooga aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay cabdilaahi iyo tiimkiisa halkaa ka sii wada ayaan odhan doonaa insha allah ducadana ha laynoo raaciyo biidnillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu صلى على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم برسابك قبلك قبلي حمزة محمد عبدي قداميها وحبرشدة قبلك عبد السمد عمر قابل قديدا وحبرشدة دقمدة كورميرياشي دقمدة وحبرشدة مامولكا سكولك العرفان برايمري سكول إيو قيبتك على مدارس العرفان النقري شوكتا والدينتا أرضيدا معلمين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan isugu nimid maanta u joognaa in la soo xidho shahaadooyin la guddoonsiiyo ardaydii dhiganaysay Al-Irfan Primary School dugsiga hoose ee Al-Irfan eegay warsaabku inaga maqnaa baan brief gareynayaa ardaydani waxa weeyaan ardayda la yiraahdo Al-Irfan Primary School oo ah dugsi cusub oo dhawaan la yagleelay kadib markii ay arabsi iskuul kaliya lahayd xagga dugsiga hoose iskuulkuna wuxuu ku yaalay qarka shishada waxa ka shisheeya dooxyadii iyo wadooyinka ay ciriiri ardaydii ku noqdeen kalaasyadii magaalada ay badatay ardaydii qaadi waayeen waxa loo baahdo lagama maarmaan noqotay in dooxa dhinaciisan kalena dugsi labaad laga sameeyo مدارس اللي يرادوا على العرفان أو يقفعوا إنه إلى يكون يسقال بقول يسديد يلحدكي سوتري أو علوم تديني يا عربي لقوا برنتري لقونا برتيلا هاتن أو يظهر كل دول له قديمة أو وليد بالإسكسو دحليي أو أيوة برشيد يدنافع نقطي أو أي علماء دي مركز تشوغان عالمك وأنا قوة لقاطو معلمين تدلكين وحبارة دين يا عربي gaar ahaan dugsiyada sare gaar ahaan gobolkeena dhamaantii inta dugsiyada sare waxbarashadu waxay tiirisaa aqliga saliimka ayay kabtaa noocay doontaba ha ahaatee cilmiga Allah iska leh ciduu doonuu siiyaa waxa shalay ahayd inanta qoyska reer Yurub ka tirsanaya weliba boqortooyada ee la guursanayo haddaan lagu mariimin saantii maaska ahayd ee barooka laga dhoofinayay tu qayrkeed ka hadhay bay ahayd waqti la odhan jiray qofkani ma islaam buu ismoodayaa sidan uu xaragoonayaa waa maxay madaariska Al-Irfan qiimahooga wax halkan lagu koobi karayo ma aha waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa una mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta soo agaasintay xafladan aynu maanta halkan u joogno oo ah jaa'isadii sanad dugsiyeedkii 2015 oo maanta la siinayo iyadoo sanad dugsiyeedka 2016-2017 ay duruustii bilaabanto ay ardaydu marka horeba iskuulkii ay dhiganayaan la inaga doonayaa inagu haddii aynu ama mas'uuliyiinta ama waalidiinta aynu nahay inaynu isgarab taagno waxbarashadu noocay doontaba ha ahaatee haddii macallin inoogu yimaado macallimiin Chinese oo yiraahdaan iskuul baan halkan ka furaynaa ubadkan baanu waxbaraynaa inaynu soo dhaweyno waxbarasho ahaan aynu soo dhaweyno mar haddii dawladeeni ay ogolaatay waa sida waxa maanta farxad weyn dhammaanteen inoo ah inaynu ka soo qayb galno xafladan loogu talagalay in lagu soo xidho sanad dugsiyeedkii 2015 ama 2016 dugsiga primary-ga ah ee Al-Irfan taas oo looga jeedo in aynu dhiirigelino ardayda kuna dhiirigelino waxbarashada aad iyo aad baan ugu soo mahadnaqayaa cid kasta oo soo abaabushay xafladan iyo cid kasta oo ka soo qayb gashayba waxa weeyaan waxa la yiraahdaa al-ilmu nuur wal jahlu dhulaam wax kasta nolosha bini'aadanka waxa uu asaasa nabadgelyada waxa ku xiga cilmiga qofku hadduu cilmi barto
wax badan ayuu cilmiga u bartay uu ka duwaya marka waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inay caruurta ugu dadaalaan aqoonta waxbarashada sidii ay u bari lahaayeen horta hooyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay hooyo ha barakeeyo ilaahay hooyo ha barakeeyo aabana ilaahay ha barakeeyo waxaan sidaa u leeyahay 3 jeer hooyo ugu celceliyay waalidiinta imika halkaa fadhida waxay u badan yihiin ama wada yihiin baa hooyooyin talo odaygina ilaahay halkana keeno waxa weeyaan hooyooyinku caruurta il gaar ah ku hayaan dhaqdhaqaaqooda ha la socdaan waxay qabanayaan ha la socdaan waxay daawanayaan ha la socdaan waxay fiirsanayaan ha la socdaan waxay ku fakarayaan hooyada ubadku marka ay yartihiin way garan kartaa hooyada iyo macalinka ugu dambeyn waxaa shahaadooyin guddoonsiiyey macallimiintii ardaydaasi haglaana wax u soo baray iyo ardaydii galay kaalmaha hore oo la siiyey jaysado ay ku farxaan waa Maxamed Habane